maalintii labaad oo aan joogno magaalada Cadale waaye maanta iyo xalay dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta Hirshabeelle oo hogaaminayo madaxweyne Wali Gaabis yaan wada fadhinay arrimaha aan ka wada hadlaynayna arrimaha deegaanka oo Hirshabeelle iyo degmada Cadale waa ku jireen arrimaha qarankana waa ku jireen laakiin deegaanka arrimaha quseeyo ee dib u heshiisiinta iyo duruufaha gaarka ee deegaankan ka jira sidii wax looga qaban lahaa haday tahay degmada Cadale iyo guud ahaan haday tahay Hirshabeelle oo dhan bal waxa ka jira iyo xaaladeedii sidii ku sugan tahay aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa madaxweyne Wali Gaabis oo si dhiib ah oo hoose nooga xog waramay deegaanka iyo xaaladiisa sida ay tahay min gees ilaa gees laga soo bilaabo degmada Matabaan oo ugu xageysay ilaa degmada Cadale oo xeebta ku taal inta u dhaxaysa xaaladda deegaanka sida ay tahay nooga warbixiyay waxyaabo badan oo deegaanka guud ahaan Hirshabeelle u baahan yahay iyo deegaanada duruufaha gaarka ee ka jira in lala tacaalo u baahan odayaal deegaankana ka tirsan dalkana mas'uuliyad hore u soo qabta haddana inay mas'uul u noqdaan raba ayaan nahay talo iyo ra'yina waan leenahay codna waa ku leenahay dadka dhexdiisa dadkana waa la hadalnay xalay waxaan la shirnay odayaasha dhaqanka qaarkood galabta iyo caawana waa la ballansanahay kuwa kale dhammaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo sida u midoobi lahaayeen oo loogu midoobi lahay in dhibaatooyinka khilaafaadka yarka dhexda jira la xalliyo dawladda Hirshabeellena la wada garab istaago mushaakilaadka dib u heshiisiinta meel walba oo mujtamac ku nool yahay mar walba khilaafaad yar oo isqabqabsi ah waa ka jira Hirshabeellena intaas un baa ka jirta ee wax serious kama jiraan arrimaha siyaasadda hadii meel ay ka jiraan ayadana sidoo kale waana ka wada hadalnay waana ka ballanay dawladda Hirshabeellena talaan siinay sida oo arrimahaas looga saxi karo wixii annagana looga baahan yahay oo inaan dawladda ku garab istaagno sida ay ummadda ay mas'uulka u yihiin dooratay ayaga ay mas'uuliyadeeda ay u hagaaji lahaayeen mas'uuliyiinta Hirshabeelle oo dhan waa kuwaana madaxdii dhammaan runtii shaqo aad iyo aad duruufo aad u adag ayagoo ku shaqaynayo oo aan garanayna xaaladda guud ahaan dalka gaar ahaan Hirshabeelle ka jirto haddana shaqooyin badan ay qabteen aad iyo aad u ballaaran waxna waa u dhiman yihiin dabcan oo Soomaaliya oo dhan ayaaba wax u dhiman yihiinoo waa tii qabyadii aan ka ballami jirno waaye meel walba qabyadu taallaaye Hirshabeelle lafteeda qabyadu waa taallaaye ilaahay idinkiis madaxweyne Wali Gaabis horeyna mas'uul uga soo ahayo aad u garanayo meesha ay qabyooyinka ay ka jiraan nasiibay u yeelatay Hirshabeelle inay hesho oo ay ku yiraahday oo ka hadlo waxaan rabnaa labada gobol Hirshabeelle ay ka koobanto Hiiraan iyo Shabeellada dhexe maamulkii Hirshabeellena waa nala joogaan waa tan sheegay maamulkii gobolka oo gudoomiyihii gobolka iyo raggiisii ay u sareeyaan iyo gudoomiyaashii degmooyinkana waa aragnay sidoo kalena insha Allah taala mustaqbalka soo socdo mar kamida maamulka Hiiraan iyo maamulkiisa iyo raggii dadkiisana waa dhex istaagi doonaa waa u tagi doonaa waa soo dhageysan doonaa ayadana anagoo isla wada jirna dhammaan hadii alla yiraa marka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabo badan oo dadaal ah ayaa ka socdo miro dhal ah inta dhamanna waa ku guuleysanayna insha Allah waxa intaas dheer midda qaranka wada dheer ayuu dalkani soo maray barihii u dambeeyay waxoogaa isjiijiid iyo kala riixtan ay joogaano ragga madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ee ku raada madaxweyne Wali Gaabis uu ka mid yahay siyaasadda dalkan waa soo dharaan dhiriyeen meel ay keeneen inta dhimanna ayaga laga dhowrayaa laakiin anagu mucaaradkii hadaan nahay mar walba waxba nala gaaban oo sida hadda u yaaliin si ka sii fiican inay ahaadaan aan jeclaan lahayn marka si ka sii fiican inay jeclaadaan markaan jeclaan lahayn waa sheegaynaa lama aamusayna Gaabis ka jiraan leenahay doorashada dib u dhac badan ku jiro hore ayay dib u soo dhacday haddana inay dib u sii dhacdo ma rabno dib u dhacaasi mas'uuliyadeeda mar walba doorashadu waa doorashadii qaranka doorashadii dawlad goboleedka ma aha tii dawladaha hoose ma aha mar walbana dib u dhacaas waxa mas'uulka mas'uuliyiinta qarankan anaga dhinacaasaan qabnaa inay mas'uuliyadda inay hogaamiyaan oo doorashada ay kaxeeyaan ayagu ay dhaqaajiyaan ay ahayd lana kaashadaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada marka waqti badan ayaa noogaga baaqday waxyaabo badan oo aan habooneen waa ka soo gudubnay hadda waxaan rajaynaynaa mar kale in wax caqabada ah
oo kale aanay soo bixin haddana doorashadu waa socotaa dadaalkeedii waa socdaa gaabisaa jiro shalayna waa jiray gaabiskii welina waa jiraa waxaan leenahay doorashada gaabiska ha laga saaro hala dadajiyo horaha loo wadaan leenahay dhib kale ma jiro dalku guud ahaan jawigiisu ma xuma tabasho waa jirtaa weligeedna waa soo jiri jirta waana jiri doontaa siyaasiyiintaa tabasho qabo beelaa qabo degaannaa qabo dawlad goboleedyaa qabo waxaasoo dhamma waa jiraan laakiin haddana waxaa ilaahay mahaddiis ah in dawladnimada soomaaliya weli ay taagan tahay maantana sidii ay hore ugu soco lahayd oo dimuqraadiyaddeeda u exercise garayn lahayd midda oo heer qaranaan sheegaa midda heer dawlad goboleed madaxa dalkan dawlad goboleedyadoo dhan joogi jirtay waa la wada bedelay kuwa cusubaa yimid oo la doortay waa socotaa hawshoodu in la isbeddelana hadda waaba iska caadiyo waa sunnada siyaasaddayba ka mid tahay in la isbeddelo dimuqraadiyaddaba haddaan la isbeddelaynin anaa iska joogayo uu leeyahay de meeshaasi dimuqraadiyad kama jirto marka dalka guud ahaanna rajo fiicanaa ka muuqato waana rajaynaynaa in doorashada la dedejiyo nabadna ay ku dhacdo lagana ilaaliyo wax kasta oo doorashada xanaf iyo ceeb u keeni kara credibility-ga doorashada mar walba waa muhiim waxa soo baxa hadhow inaan la isku qabsaninaa muhiim ah waxa soo baxa hadhow inaan dadka qaarkiis aanay diidin oo aanay ka biyo diidinaa muhiim ah waxa soo socda hadhow inaan dhiig ku daadanin oo wax dhiig ku daatay uu noqdo ayaa muxuu ahay muhiima intaasaan ku celcelinaynaa haddana waa ku celinaynaa guud ahaan laakiin rajadu waa fiican tahay rajo xuma ma jirto hore ayaa loo socdaa insha allahu tacaala mar kale waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo madaxda dawlad goboleedka hirshabeelle oo maamulkooda oo hormuud oo u yahay madaxweynaha mudane cali guudlaawe iyo madaxda dawlad goboleedkoo dhan haddii ay tahay heer baarlamaan haddii ay tahay heer xukuumadeed dhammaan waa u mahad celinaynaa sidoo kale maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaan asna si gaar ugu mahad celinaynaa guddoomiyahooda iyo guddoomiyaashooda degmooyinka oo aan leenahay ayagana waa mahadsantihiin baahida degaanka iyo duruufaha jira waa idinka maqalnay codkeenna waa ku kabeennaa wax allaaliy waxaan ka qaban karnana waa idinla qabanayna